iyadoo ummadda muslimiinta ee maanta u dabaaldegaysa munaasabadda ciidul fitriga ayaa Soomaalida ku dhaqan dalka Yemen gaar ahaan magaalada Sanca ayaa waxaa ka muuqday farxad iyo damaashaad iyo reereen iyagoo aad ugu dabaaldegay uguna damaashaaday farxadda ciidul fitriga Soomaalida oo labadii sano ugu dambeysay dalkan Yemen oo dagaalo ba'an ka taagnaayeen ayaa waxa laga dareemayay in ciidan ay uga duwan tahay ciidii ka horeysay iyadoo sidoo kale ciidii ka horeysay ay uga sii duwaneed sanadihii badnaa ee dalkan ay qaxootiga ku ahaayeen. alxamdulillah anagoo hadda soo dukanay sunnadii salaada ciida halkan waxaa isku yimid dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Sanca oo maanta Soomaalidu aad iyo aad ugu dabaaldegtay munaasabadda ciida barakeysan ee ciidul fitriga. maxaa dareemayseen farxadiina ugu miyaas doonaysaan inuu hambalyeysaan ciid munaasabadda ciidul fitriga. قادر حسن إبراهيم halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan reer xasan Ibraahim oo joogan Muqdisho ciyaalkayga hooyadood dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa oo kaleeto inta muslimiinta caalamka waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair ciidan oo u jeedno ciid aad iyo aad u qiimo badan ciid muslimiin oo kaamil oo soo ciidan سعيد حسن عبدي سعيد بقدي waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan Soomaalida meel kasta ay joogaan iyo dunida islaamka maadaama ay tahay maalin qaali ah maanta ciid barakeysan ciid al-fitr mubaarak ayaan salaan idin soo gudbinayaa waxaan kaloo salaamayaa caruurtayda iyo xaaskayga iyo reer xasan bagadi dhammaan anigoo ah xasan cumar aadan waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan salaamayaa oo kala asxaabtayda iyo ehelkayga oo Soomaaliya joogaan aniga waxaan idhahaa Nimcaan Sheekh waxaan salaamayaa muslimiinta dhammaan meel kasta ay joogaan gaar ahaan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ku kala nool yihiin salaamayaa baba salaamay mama salaamay aba salaamay mama salaamay magacaygu waa Maxamed Axmed Xirsi waxaan ka mid ahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan waddanka Yemen ummadda islaamka meel kasta ay joogto waxaan leenahay ciid mubaarak alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay nabad ayuu nagu soo gaarsiiyey inkastoo dhaama sidii sanadkii hore ay sanadkan ka amni fiican tahay Yemen gaar ahaan caasimadeeda Sanca waxaan halkan gaar ahaan ka salaamayaa hooyadayda xaaj warsame iyo dhammaan xaaj warsame gaanda inkastoo Soomaalidu ku nool dalka Yemen ay muddo 2 sano ay ku jiraan xaalad dagaal haddana maanta waxay si aad iyo aad u weyn ugu dabaaldegeen ugu damaashadeen ciidul fitri ciidul mubaarak kadib markii ay soonaayeen oo cibaadeysanayeen bil waxaa laga dareemayay dadweynaha Soomaaliyeed ay maanta ku nool magaalada Sanca farxad iyo reereyn Idriis Xuseen Dhiilow SNTV Sanca Yemen.